السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وقابتي صدحات برنامجكيني tobanka asxaabi ee lagu bishaareeyay jannada hadaba asxaabigan wuxuu ahaa cali bin abi talib allah ka raali noqdee cali bin abi talib waxa uu dhashay 13 rajab 22 hijriyada oo ku beegan sebtembar 20keedii 601 kabcada maka ee dhulka carabta isla markaana waxa uu dhintay 21 rabadaan 40 hijriyada oo ku beegan janaayo 27keedii 661 ee sadabadii oo ku yaala Ciraaq wuxuu ahaa in adeerka iyo wiilka uu sodonka u yahay Nabi Maxamed naxariistiisa nabadgelyo korkiisa ahaatee hogaamiyihii shanaad ee dowladda Islaamka asxaabi ka mid ah khulafaa raashidiinta iyo mid ka mid ah asxaabta rasuulka sallallahu alayhi wasallam cali bin abi talib wuxuu ahaa wiilkii ugu daada yaraa ee aqbalay diinta islaamka kaasi oo dadka raacsan sunnigu u yaqaanaan khaliifkii afraad ee khulafaa raashidiinta sidoo kale dadka raacsan shiicada waxay u yaqaanaan ama ay u aqoonsan yihiin imaamkii koobaad iyo kan xaqa u leh ee ku xiga nabi maxamed cali wuxuu ahaa hogaamiye ka mid ah khulafaa raashidiinta kaasi oo ahaa talada iyo hoggaanka maamulka dowladda islaamka la wareegay isagoo ah nin yar kadib markii uu Cusmaan bin Affan geeriyooday qoyska cali bin abi talib waa aabihii talib ibn abdi al-mudalib hooyadiina waxaa la oran jiray faaduma bintu asad laba gabdhood iyo saddex wiil ay walaalayihiin toddoba xaas ayuu guursaday 13 carruur ah ayuu dhalay kuwaas oo kala ah 11 wiil iyo laba gabdhood waxay walaalahaayeen Fatikhan bin Abi Talib Jumnah bin Abi Talib oo gabdha ah iyo wiilasha oo kala ahaa Jaafar bin Abi Talib Aqim bin Abi Talib Talib bin Abi Talib xaasaska uu guursaday magacyadoodu waxay ahaayeen Fatima Ummu bintu Zaynab Ummu al-Banin Layla bintu Mas'ud Asma bintu Umays Khalwan bintu Jaafar al-Shaba bintu Rajib wiilasha uu dhalay waxay ahaayeen Muhsin bin Ali حسن بن علي حسين بن علي هلال بن علي العباس بن علي عبد الله بن علي جعفر بن علي عثمان بن علي عبيد الله بن علي أبي بكر بن علي محمد بن علي يا عمر بن علي محمد waxaana soo korsaday maxamed bin abi bakar gabdhaha uu dhalay waxay ahaayeen Zaynab bin Ali Umayya Qutub bin Ali qisada asxaabiga ayaa waxaanu ku soo koobaynaa inta Allah ka raali noqdo dhamaantood waxaanu ka mid ahaa 10 asxaabi oo loogu bishaareeyay jannada iyagoo dunida guudkeeda saaran waxaanu ahaa mid ka mid ah halyeeyadii dowladda islaamka iyo asxaabtii rasuulka hadaba mar kale anigoo idin leh Ramadaan Kariim wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh